Ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta daahsoon. Wuxuu ahaan jiray xamaalin duudka ka dhigida iyo mid noloshiisa halgan u soo galay, balse maanta waa superstar weyn. Qofkaasna qof kale ma aan waa Rajani Kanti oo ay Soomaalidu u yaqaanaan Jestoole. Rajani Kanti oo ka mid ah superstarada ugu awooda badan fanka Hindiya iyo midka ugu maqaamka sareeya fanka Kollywoodka dhankaas iyo Tamilka, wuxuu soo maray marxalado kala duwan bilowga noloshiisa ilaa iyo maantadan. Rajani Kanti wuxuu soo maray taariikh aan hadda mudnayn in la soo xasuusiyo, maadaama intuu fanka ku soo biiran uu soo qabtay shaqooyin adag oo xilligan ka ceebsanaya inuu dib u milicsado, maadaama uu hadda nolol heer sare ku nool yahay. Horaantii noloshiisa Rajani Kanti wuxuu ku noolaa nolol adag oo dhib badan. Wuxuu la noolaa qoyskiisa oo sabool iska ahaa xilliga. Wuxuu ku qasbanaa inuu qabto shaqooyin aan qudhiisa u wanaagsaneyn si uu noloshiisa reerkiisa u maareeyo. Wuxuu soo noqday xamaali ka shaqeeya goobaha bulshada ugu badan tahay sida goobaha basaska laga raaco, goobabka laga raaco tareenada. Wuxuu qaban jiray shaqo kasta oo ka hor timaado. Shaqadii ugu sharafta badneed ee Rajani Kanti uu helay waxay ahayd sanadkii 1973 markuu noqday darawal bas ka soo kaxeeya oo kaasoo ka shaqeyn jiray magaalada Bangalore. Halkaas ayayna ugu bilaabatay iftiinka noloshiisa cusub. Wuxuu helay fursad uu ku muujin karo hibidiisa jilin. Wuxuu helay jaanis uu ku soo bandhigi karo. Wuxuu noqday xiddig ka soo muuqda riwaayadaha, dabadeedna u soo dalacay inuu sameeyo aflaanta ilaa uu ka noqday Rajani Kanti aan maanta naqaano.